Maydh mid ka mid ah magaalo xeebeedyada ugu qadiimsan ee ku yaala Somaliland ayaa lagu tiriyaa ana taariikhda lagu qoray inay tahay magaalo xeebeed qadiimi ah oo lagu qiyaasay inay jirtay ku dhawaad 900 oo sano balse ma aha taariikhda rasmiga ah oo way ka weyn tahay intaasi Jaamac Dhunkaal oo kula kulmay xeebta Maydh ayaa ila wadaagay taariikhda intuu ka soo gaadhay xeebta Maydh waxay ahayd marin ganacsi waxaana ay ahayd xeeb laga dhoofiyo xoolaha taasi oo loo dhoofin jiray wadamada Carbeed ilaa 1980kii waxaana ay dhacdaa waqooyiga gobolkaasi Sanaag ku dhawaad qiyaastina waxay magaalada Cerigaba isu jiraan ilaa 90 kiiloomitir aniga horta taariikhdaas way ka weyn tahay saxaaq baa markii hore leeyahay jiradu waxa u maleeyahay jiradu ilaa 900 dabadeed halka waxay noqotay dabayl dad dambe oo waalidkooda wax ka garanayo halka yiil dabadeedna dooyad tibir sida baa halka iman jiray dabayshu markay soo dhacdo bay barhoosada qaataan markaas waxa la oran jiray xaya laaxiis jaamac Jaleeka oo dugsi ah bay gali jiray did odaya oo yaani odaya oo meesha oday ka ahaaba maalintii dambe soo sahal tagay halkuu yid mase waa ceel dabayshii dhacaysay halkaa ku dhacaysa sheekh ee asabka ahayda barhoosada dooyaa u qaadaysay waa ceel maalintii dambe yiri goortii laba dhaqaaqday wala xaya laaxiis dambe kaaba yeedho arareen baa la yari togan way ba afka ku haysaa carar ka yimaad ee marka ku bowgalaysa soo taadona buuqyada waaweyn dadka ka soo noqda halkan uu maraade waa jidaaray anigu markaa 60 baan soo galay magaalada dooyaha iba jiray adan baa markaa furay adan baa furay oo dadku waxa ka soo iibsan jiray oo arigan la jiray oo dadku u dhoofi jiray markaa dad aan baasaboor balahay baa dooyaha lagu guuri jiray baa adan tagi jiray oo ka shaqaysan jiray adan iyo toon markaas ku mid ah halkaas labada dooyooda yimaada wadanka xarqiyaan magaaladu waxay magaalo dad yar jooga oo kooban yahay dadkana deertay maarta fiday ku dhaqmay hadii ala ma kuuray magaaladu waxay inta xeebtahay inta niyaba yahay kuwa barka magaalada laga soo gulo Dubai halka laga soo galo Dubai oo xagga badda ka xigana waaba jirtay dhawaan baa markaa dabadeed dadku inta soo faacsaday dusha la degay meelaha la soo raacay leemankaas soo dhan ay jireen wana xeeb facweyn oo u baahan maalgashi waxaana ay ahayd bariisamaadkii mid ay munaafacaadsadaan dadka deegaanku balse maanta waa ay ka duwan tahay xeebtii bariisamaadkii sida uu qabo oday Jaamac dooyaan haran sidaas ay ahaayeen barroosada isku ku xidheen sidii tadadii wala aruuba ahaydeen markii wadanka berbera iyo la soo xidhay ilaa xiis iyo mar uu hafuraad hadda arkayde yaa bilaahay bidin dilida arbeedo kallu doonaya baadantii indhabood ka iman jiray laakiin baa mustari marmar waa laga yaabaa ari ama laba dooyood in laga raro maaragtay arafada iyo halka oo la geeyo meesha yaman laakiin wax baa mustaro kale ka jooga dooyaha kalluunka doonaya ma yar yar waanu halkoo kasta hortiisa ku soo dhaafnay arabtii fadhiday oo kale baa yimaada waxay ahayd dekad wax laga dhoofiyo waxna laga soo dejiyo balse maanta labadaasi way ka aradan tahay xamsada baari telefishinka RTN Maydh.